قصة عجيبة بإذن الله وذاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. nin macallin ah baa arday wax u dhigi jiray. ardaydii mid ka mid ah baa saacad xaday. saacad markuu xaday macallinkii wuxuu ogaaday ardayda mid ka mid ah inuu saacaddii xaday. marka ardaydii wuxuu ku dhahay derbiga u wada jeesta indhuhuna ka xira. ardaydii buu baare saacaddii mid ka mid ah ardaydii buu ka xiray. saacaddii markuu ka qaaday jaakuu gashaday. ardaydii buu marka sii baaray marka sida qof aan saacadihii helin weli. ardaydii oo dhan markuu wada baaray kulligooda uu ka dhammaystay buu indhaha ka wada furay fariistuu yidhi. markaasuu yidhi qofka saacadda xadow waa ku ogahay mar dambe ha samaynin. bas ninkii baa marka 40 sano kadib baa lacag loo soo diray. lacagtii wuu soo qaatay. markaasaa la yidhi qofka lacagta ugu soo diray ma taqaanaa? markaasuu yidhi may. ninkii qofkii lacagta u soo diray buu wacay. markaasuu yidhi yaa ahayd? qofkii baa wuxuu dhahay baan saacad xaday marka waa ii ceeb qarisa camal. marka dunida maanta aan ku nool nahay dadka ceebahooda lama asturo. qof baa la soo qarxiyey, gabar baa la soo qarxiyey, wiil baa wax unbaa maqli. marka dadow arrimahan ha liska ilaaliyo. qof ceebtiisa haddaa baraha bulshada aad soo dhigtid adigana ceebtaada si ka daran buu ilaahay baraha bulshada u soo dhigi doonaa. sababto ay tahay culammada islaamku waxay dhahaan aljazaa'u min jinsi alcamal. qofka haddaa wax ku samaysid wax ka daran way kugu dhacayaan, waxay dib bay kugu soo laabanayaan. qof haddaad dulmiso dulmigaas wuu soo degdeg. qisada tan waxaa ila wadaagay nin macallin ah oo xafiid qur'aan ah oo darisaan ahaan jirnay oo saaxiibaan aan ahayn oo kubadda kolayga isla ciyaari jirnay. marka insha allahu tacaala ilaahay ha barakeeyo. wuxuuna ii sheegay inaan ummadda la wadaago. marka intaas maa dhiila wabillahi tawfiiq.